talyaanigu waxa uu ku rajo weyn yahay inuu xal ka gaadho dilkii arday talyaani ahaa oo lagu magacaabi jiray Giulio Regeni ka hor dhamaadka sanadkan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Talyaaniga Luigi Di Maio oo la kulmay madaxweyne Casiisi maalintii Arbacadii ayaa sheegay in saraakiil ka socda garsoorka Talyaaniga iyo waddanka Masar ay baadhitaan ku sameynayaan sida ugu suurtagalsan arrinka ardaygaas. Talyaaniga ayaa rajaynaya inay ka soo baxaan baadhitaanka lagu sameynayo dilka ardaygaasi lagu magacaabi jiray Giulio Regeni ka hor dhamaadka sanadka. Waxaana uu yiri I hope that by the end of the year we will waxaan rajaynayaa in dhamaadka sanadkan aanu ku guuleysan doono xalka arrinka ardayga iyada oo ay dhinac socoto shirar u dhaxeeya maamulka garsoorka sida iska cad ma dadajin doono iyaga maxaa yeelay waxay yihiin garsoorayaal laakiin dhinaceena iyo dhinaca kooxda kale ee reer Masarba waxaa jira rabitaan ah in la weydiiyo dardargelinta ayuu yiri Di Maio. Ardaygan ayaa la waayay 25 Janaayo ee 2016 kaasoo qaatay shahaadada cilmi baadhistii jaamacadeed ee ururka shaqaalaha ee waddankaasi Masar. Meydkiisa ayaa la helay 9 maalmood kadib iyada oo baarayaashii Masar heleen calaamado jirdil baahsan ah. Sirdoonka iyo ilaalada amniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in 2016 ay bileysku ka soo xireen ardaygan bannaanka magaalada Qaahira 25 Janaayo ee sanadkan kadibna loo wareejiyay qayb kale oo baadhitaan. Mas'uuliyiinta Masar ayaa beeniyay isla markaana iska fogeeyay inay wax lug ah ku leeyihiin. Dhanka kale madaxweyne Cabdifataax al-Casiisi ayaa bishii hore sheegay in Masar ay go'aansatay inay soo afjarto baadhitaan wada jir ah in cadaaladda hor keenaan ciddii ka dambeysay dilka ardaygaasi.